Assalaamu calaykum. Maanta waxaan eegaynaa qaabka loo haki gareeyo dadka Wi-Fi-ga kugula jira adoo isticmaalaya application-ka hal ku yimaado Wireshark loo yaqaano. Laakiin halkan sidaad arkaysid Window-deedii baan ku jiraa. Marka Window-na waa lagu soo shuban karaa Wireshark. Khaliya waxaad tegaysaa website-kiisan halkaad ku arkaysid wireshark.org. Kadib Wireshark muxuu ahaa ii sheeg waad la soo degi kartaa. Okay, iminka kaali ka kacso Khaliya Wireshark setting-gaaga ka raadi waad ka heli. Marka ugu horeysa sidan buu noqonayaa aad soo kacsatid. Haddaan weyneeyo halka khaanada waxaan dooranaynaa Wi-Fi ay ku qorantay markaa. Haddaba Wireshark wuxuu samayn doonaa inuu in dadka noogu jiro oo dhan muxuu ahaa traffic-kooda uu soo qabto. Laakiin filter yar waa inaad ku xidhid markaad rabtid inaad iminka oo kale aad ogaatid qofka website-ku tegayo. Website-ku muxuu ahaa information ku saabsan website-ka uu tegayo inuu password-ku gelinayo. Marka haddaan iminka oo kale website-ka halkan aan tago aan samaysto ii sheeg email aan ku qoro fikrado password-kana aan ka dhigo YouTube markaan login siiyo. Khaliya website-kan waa test aan nagu tusay password-yadii waxa. Haddaba Wireshark ku soo noqo halka waad arkaysaa Wireshark ku soo qabtay. Kadib haddaad ku dhufatid password-ka wuu kuu soo saaraya haddaad eegtid. Laakiin waxa ugu wanaagsan inaad iska save garaysatid file-ka. Waxaan ku save garaynaynaa YouTube ku save garay. Okay, Wireshark iska xidh. Haddaba website waxaa jira la yiraahdo apacket.com. apackets.com baad tegaysaa. Kadib upload baad odhanaysaa. Marka ii sheeg Wireshark wuxuu qabtay login-kii qofka. Marka dad badan oo igu jira oo kale login hadday sameeyaan dhowr qof baad helaysaa. Laakiin haddaan demo aan test ahaan kuu tuso file-kaas wuxuu ku save garaynayaa file la yiraahdo capture. Marka file-kii waxaa xasuusno waxaan ku save garaynay YouTube. Marka website-kan baan ku upload garaynaynaa file-kaan markii dhaweyd save garaynay. Soo kicilaya refresh sii. Okay, YouTube waa kan file-keeni. Xogaa buu upload garaysmayaa. Okay, view report baan odhanayaa. Marka view report markaad tiraahdo report yar uu ka diyaariyey muxuu ahaa packet-kaagii ayuu ku tusayaa. Marka anagu waxaan rabnaa un HTTP request-ga kaasoo dee password-kii uu ku jira iyo qofka muxuu ahaa email-kiisii. Iminka in yar baan capture gareeyay. Haddaad traffic waqti badan capture garaysid file-ku aad buu weynaan karaa. Laga yaabaa website-kan inuu ku weydiiyo inaad muxuu ahaa premium-kiisa iibsatid. Laakiin inta ugu badan muxuu ahaa kolba 30 second mar baad capture garayn kartaa. Saasna waa caadi. Marka halkan waa inaad markasta raadisid halka ay ku qorantahay browse iyo get-ka si aad u heshid muxuu ahaa password-ka qofku geliyay. Okay, halka adigaa ku arkaya username iyo password-kii markii aan YouTube ka dhignay. Marka Wireshark qaabkan baad u isticmaali kartaa. Waxaanad kala soo degi kartaa website-kan apacket.com-na link-gaan hoosta iga tagayaa. Marka waa kan qaab yar oo fudud oo qofka kugula jira internet-ka aad ku ogaatid password-kiisa. Aad baan ku salaamayaa.